سعيد بيق محمود عبدي لبي لباتن جرأة إنا سكوري شاعر عثمان كل شيء حمر وحالقوقو ايدينا إن أتكتر سنتها كوحدة على الشباب أرتر أنا جاريجا صدو إيه قرح الله وحي ماشي جوجو أرتو حواي جهنم وذا أدلاين لكن سجاريجا ومارك تديده إنه قرحه وأنقول عليه ماشي لقى قرحنا وأنقول عليه وإيسو رجله ويسي كوبي حبدي بسوفر جنايم بمارك تجاري وكشير الري ويكلا أردن دفاع ويكبحن وإيسو رجله ويسي مع ذلك جاريجي أي أحد يسوي حكاكعي هولع يود waxyaabahaas ka kacay kursigan ku fadhiyo dhan yacni maarata waxaa wada qabsaday holac asiga dhan ba holac is qabsaday maadaama holac gaariga oo qabsaday oo dhexdiisa holac ka kacay marka waxaa waa holac in lagu dhinto waa maarata waa dambi waa ismin kabiir marka gaariga waan ka tagtay kontonaad ee xeerka ciqaabta wuxuu leeyahay qof kasta oo waqtiga uu falku galayay ahaa qof aan xiskiisu dhamayn sabab caruurnimo ama xiseed wuxuu leeyahay marka xiskiisa ay daboolneed kartida fahamka xadgudubka ma qabanayo mas'uuliyad dembi wuxuu leeyahay mas'uuliyadda dembiga ma reebayso qof caatifaysan oo ku jidbaysan arrintiisa ninkaani jidbadii uu ilaa hadda ku taagan yahay qof waalan maaha tan labaad in la daweeyey hal sano ka hor uu dembigu dhacay hal sano iyo bil buu afkiisa ka qirtay inay ka soo wareegtay muddadaa intaa leeg isaga caafimaadkiisa maadaama dhaawacu yahay aan la badbaadinaya kiiskiisu wuu caddaa markuu caafimaaday oo dhan yahay ayaa maxkamadda la hor keenay ma aha qiil hadda ay qaranadu u raadiyaan in hadda dhakhtar kale loo diro wuu caafimaad qabaa waafiyo laakiin wuxuu ku caadifaysan yahay jidbadii hayse iyo wixii maskaxdiisa ay ku soo shubeen amiiradii shabaabka oo asagoo shaqo u jooga gobollada bari boosaasaa lagu qabtay sida uu maanta halkan uga shactaraynayo leeyahay shabaab waa ku qanacsanahay iyo fikirkaasaan aaminsanahay muusan isticmaalin maadaama aan lagu qaban caddayn muujinaysa inuu al-shabaab yahay wuu inkiray maalintaas maxkamadaa la geeyey borosees cadaaladeedu maray wuu diiday wuuna dafiray wuu iska biri yeelay sidaas ayuu ku muteystay in la sii daayo uga fakaday mataqaanaa gacanta maamulkii hayay tan inuu sheekeeyo maanta uu dhaho shabaab aan ahay waa ku qanacsana fikirka waxaa kalifaayo waxaa lagu qabtay caddayn gaariguu ka soo degtay laga soo dejiyaa qarxay wuu og yahay inuu marnaba biri noqonayn ee lagu hayo caddayn sababta keenaysa inuu sheekeeyo uu dhaho dembigaas waa galeen maxaa yeelay isla saciidkii waaye boosaaso lagu qabtay inkiray markuu afgooyo tegey waalidkii isaga dhalay aabbihii hooyadii waxay kula taliyeen inuu isu dhiibo dowladda qiraalkiisa maxkamadda ayuu ka hor qirtay inuu isu dhiibo dowladda oo faxas ka baxo wuu ku gacan sayray waalidkii mar labaad ayuu dib ugu noqday shabaab aakhirkiina wuxuu isku qoray inuu ismiidaamiyo sidaas darteed maadaama uu yahay qof ku adag ilaa hadda maxkamadda horteeda khatartiisana ummadda in laga badbaadiyo u baahan waxaan weydiisanaynaa maxkamadda in ciqaabta u qalanta ee ay qorayaan aayaadka qur'aanka iyo qodobada aan ku soo eedaynay ay ku xukunto maxkamaddu waa mahadsanta qofka mar haddii maxalu shaahidkan waxaa waaye waa canil majnuuni hataa yafiiqa inay waalin yahay oo cad tahay taasna waxaa tusinaysaa sida hadda isaga ugu dhaqmaya mahdarka hadda la jooga qof miirkiis qaba inay wax socda fahmayo oo dareensan yahay ayaa laga rabaa inay hadda faham waayo meesha isaga jooga waxaa ka dhalanaysaa in isaga aan ahayn qof maskaxdiis taam tahay oo joogto saas daraaddeed waxaa ku raacsanaaya osigii awowkaataa iga horeeyey oo inay loo arko in qof maskaxdiis aan joogin yahay oo xanaano u baahan dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ah eedaysanay siciid biriq maxamuud intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso